الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسيغان waa darsigii 13 waxaan ka soo sheekaynay nabigeena muxtaar cali sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisii iyo sunuugmadiisii iyo sidii maartay waxyaabihii ka dhacay inta uu Xaliimatu Sacdiya la joogay iyo sidii laabtiisii loo kala dilaaciyay in malakul jibriil u yimiday isagoo 4 sano iyo 3 sano intuu dhaxaysa jiro qisadaas waa ta darsigii hore ka soo sheekaynay. hadda bal waxaan ku naqanaynaa nabiga cali sallallahu alayhi wasallam markii hooyadii lagu soo naqay ilaa iyo uu ka gaarayo 12 sano inta uu dhaxaysa waxyaabihii dhacay. nabigeena muxtaar cali sallallahu alayhi wasallam Xaliimatu Sacdiya markay soo naqday waxay ku soo celisay hooyadii waa ay haysay aad bay u xalaanay jirtay ilaa uu nabigu ka gaaro 6 sano. nabiga marka uu 6 sano gaaray Xaliimatu Sacdiya waxay jeclaatay inay soo ziyaarato qabrigii zawjkeedii Cabdullaahi bin Abdul Muttalib inay qabrigiisa soo ziyaarato markaas ay la soo tagtay nabiga cali sallallahu alayhi wasallam iyadoo isagoo yar oo agoon ah iyo gabadha u shaqeey jirtay oo la dhihi jiray baraka ama se markii dambe loo baxshay nabigu u baxshay Ayman waxay soo aaday qabrigii zawjkeedii way soo ziyaaratay qabrigaas oo u jiray 500 kilomitir u jiray magaalada Makka. markay soo ziyaaratay abtiyaalkii iyo cid ay u timiday maalmo ay la joogtay way soo noqotay. markay soo noqotay meesha la yiraahdo al abwaab oo maartay Makka iyo Madiina u dhaxayso haday soo socoto ayaa Aamina binti Wahab xanuun qabtay. xanuunkii baa ku soo bato meeshii bay ku geeriyootay marka ay nabiga hooyadii ay geeriyoonayso 6 sano ayuu jiraa. waxaa soo waday gabadha leeyahay Ayman oo nabiga caleey salaatu wasalaam aabihiis oo ka dhinto cid reer markaas u aheeday adoon u aheeday laakiin aakhirkeeda uu nabiga xuray doono oo maartay gabadha Ayman loo bixi doono ayaa soo waday. gabadhii baantay soo qaaday ayay waxay u keentay nabiga awowgiis Abdul Muttalib ayay u keentay guriga u keentay. Abdul Muttalib waxa uu ahaa nin waayeela oo caaqila oo shariif ah oo magaalada Makka dadka laga jecel yahay dadka loogu jecel badan yahay waxa ahaa nin aad iyo aad u degan oo magaalada Makka markuu yimaado ama uu Kacbada dawaafayo dadka Qurayshta khiyaartooda idil nimay ka heebeystaan oo aad looga dambeeyo oo hoggaanka Makka ninka hayo ahaa. marka loo keenay nabiga caleey salaatu wasalaam isagoo agoona ee aabihiis aan maartay joogin Abdul Muttalib waxa Ilaahay ku ilhaamiyay inuu jacayl aan aqliga galaynin intuu jeclaado gaaro meesha uu fadhiisanayo la fadhiisto meesha uu jiifana la jiifto meel allaala ma uu Abdul Muttalib joogo inuu weedo ee wiilka geeyo. xataa waxay culimadu siiradu sheegaan Abdul Muttalib markuu meel fadhiisto gogol ama sariir ama joodari wuxuun oo dadka madaxda meelaha gogasha wanaagsan loo dhigo wiilasha oo dhalay mid kamid ah ma hawaysa karin inuu la fadhiisto laakiin nabiga oo cunug yar ah ayaa la fadhiisa jiray oo Abdul Muttalib wuxuu dhihi jiray inna li ibni hada sha'nan waxay dhihi jiray wiilkan kayga arin weyn ayuu yeelan doona ee dhaafa. mar xataa ay isku dayaan inay adeeradu ka celiyaan yiraahdeen awowga gogasha la fadhiisan oo wuxuu yiri dacuuhu fa inna lahu sha'nan wuxuu radaayo yiri wiilkan wuxuu leeyahay amur weyn ayuu leeyahay farxa ka qaada. marka sidaas oo ahaa ilaa marka uu ka gaaro 8 sano marka uu gaaray nabiga awowgiis Ilaahay baa oofsaday. waatay ka sheekaynayso Ayman ay leedahay aniga waxaan xasuustaa tiri nabiga 8 sano jiro ee Abdul Muttalib markii la duugay ee qabriga la geliyay asagoo ooyayo ilin ka socoto ee qabriga dhinaca uga dhagan markaas waxay tiri aniga inta gacanta ka soo qabtay ayaan soo waday tiri. marka nabiga awowgii oo dhintay waxa loo keenay adeerkiis Abi Daalib waxa uu ahaa nin waayeela oo Abdul Muttalib ku xigo oo wiilashiisa u weyn ninka wiilashiisa markaas hoggaanka u haayo. hadii Abdul Muttalib oo dhintay hoggaankii Kacbada iyo Makka waxa loo dhiibay ninka adeerkiisa Abi Daalib ayaa loo dhiibay. Abi Daalib ayaa saa nabiga ku hayay asaga soo barbaariyay. Abi Daalib waxa Ilaahay isagana ku ilhaamiyay nabiga caleey salaatu wasalaam jacaylkiisa wuxuu u jeclaaday si aanu ilmaha asaga oo dhalay aanu u jeclaan
aad u xalaanay jiray xataa wuxuu ka fikiri jiray jiifkiisa sida uu yahay ilaa uu maartay Abi Daalib waxa cimrigiisii oo baaqi noqday ilaa nabiga Ilaahay risaalada uu ku karaameeyo ilaa uu gaaro nabiga 50 sano ama 52 sano uu gaaro ka bacdi ayaa Abi Daalib ilaa cimrigaas uu joogo aad ayuu nabiga u difaaci jiray qisaskiisa iyo waxa asaga nabiga dhaxmaray iyo sida uu nabiga ugu dhima jiray darsiga dambe ay daruusta dambe ayaan mid ugu soo qaadan doonaa nabiga Caleeyhi salaam markii uu soo weynaaday ee uu gaaray sanadka 12 sano cimrigiisa uu gaaray waxa Ilaahay ku ilhaamiyay ninka la yiraahdo Abi Daalib inuu yiraahdo safaran aada nimanka reer Quraysh ayaa waxay goosteen inay meesha Shaam u wada safraan ciidan oo bic mushtari ay diraan ciidankaas ay dirayaan ayay waxay yiraahdeen Abi Daalib oo safarkan inaad adiga maartay madax u noqotaan raba wato Ilaahay quraankiisa inoo sheegayo rihlata shitaay wa sayfi Quraysh waatay ka caada yeesheen maxaa la yiraahdaa safarka waqtiga qabowgaana Yamani aad jireen waqtiga sayfkaana Shaam aad jireen marka waxa la yiraahdaa safarka sanadkan baxayo Abi Daalib adiga inaad waxdo markaas wuxuu yiri wiilkan Muhammad cid aad uga tagtay maalay meesha wiilkiisa watay marka qisada la yiraahdo oo marka la yiraahdo Buhayra Raahib ninka la yiraahdo ayaa maartay qisadiisi ayaa meeshan ka soo baxayso mar allaal markay soo baxeen ayagoo muddo socdeen oo waxa la yiraahdaa waliba mararka qaarkood meel safarka loo soconayo waa meel uu gaari karo ilaa bil ama 2 bilood meel loo socdo Abi Daalib markay soo gaareen meesha la magaalada Busra ayadoo maartay ka tirsan tahay dhinaca reer Shaam ayaa waxa ku timiday qisadii nimankan u imaanay waxa u yimiday magaaladaas niman Caraba ayaa jooga nimanka Caraba oo joogo waxa xukumayay xukunka Romania ay hoos joogan laakiin magaalada nimankaas Carbeed waxa ku noolay nin oo raahiba oo dadka duurka galo maartay la yiraahdo culimadu qaar ay ku tilmaamaan Jarjiis culimada qaar ay magaciisa ku tilmaamaan Jarjiis mar allaala wuxuu ahaay safarada Carbeed mugay soo dagaan nin u soo dago weydiya in nabiga soo dhashay inuu nabiga soo bixi doono magaalada waa nin uu nabiga akhbaartiisi kitaabada hore ay ka helay aad u raadi jiray marka ninkaas wuxuu ahaay niman Carabta iyo dadka iyo aan dhexgal nin culumaaho meeshii isku cibaado soo ahay ala kulli xaal nabiga markay safarka meeshii soo mareen ninkii baa soo degtay markaas uu tan nimanka kor yimid ayuu aad ugu warwareegayo safarkii dhinac walba ka fiirshayo waxa uu raadiha sida nin wax ka maqan yihiin markaas waxay yiraahdeen maxaa kugu dhacay mugaasoo wuxuu arkay nabiga arkay mugaasoo wuxuu taqab gacanta uga qabtay wuxuu yiri hada sayyidul alamin hada rasuul rabbil alamin هذا يبعثه الله رحمة للعالمين سدح ذا كلمة أي الجورية وحويري كانوا هجاميه عالم كويدا كانوا رسولك إلهي كانوا متك إلهي رحمة عالمك وقصاد دردونه مركز ذاك ماشي جوي أو أبو دار ضحية أي وحي كيدا وما علمك بذلك oo arinta seedku ogaateen inuu cunug gaano nabi yahay ama uu dadka ugu khayr badan doono seedku ogaateen mugaasawri innakum hina ashraftu min al'aqabati lam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra sajidan wala yasjudan illa nabiyyin wuxuu yiri markaad fangarta buurta ka soo daganayseen dhagax walba iyo geed walba waa sujuudiyay macnaa waa soo hanqaloocayay oo sujuud ixtiraam ayu ixtiraamay geedaha iyo dhagxaantuna uma sujuudaan waxa nabi ahayn hay'ad sujuuda ma ah sujuud cibaadaha waa inxinaa oo sujuud ixtiraam markaas wuxuu yiri wa inni a'rifuhu bi khatim an-nubuwati waxaana ku aqaanahu tiim baraha leeyahay khatim an-nubuwa ayaa garabkiisa ku yaalo labada garab maha ay isaga yimaadeen oo dhaxbartanka ayay ku taalaahu marka nabigana waad ka warqabtiino khatim an-nubuwa ayaa garabkiisa ku aali jirtay markaas waxay yiraahdeen waxaan rabaa uu yiri aniga wuxuu yiri kitaabkaygi ayaan horta qisada ka helo ee hayla yaabina waxaana idin ka doonaa inaan idin marti qaado ee iga aqbala waayahay yiraahdeen markaas wuxuu yiri wiilkan aabihi aaw Abi Daalib soo boodo wuxuu yiraahday wiilkan aabihiis waa aniga mugaasoo maya ma suuraga shoor wiilkan adiga aabihiis ma hidi wiilkan aabihiis waa dhintay markaas uu seed ku aqoonsato wuxuu kitaabkayga ii sheegay wiilkan waxaad u taa kale adiga ii sheeg markaas wuxuu yiri wiilkan aniga adeeran oo hoosaad sheega waay aabihi waa dhintay ilaan carabu adeerka aabi u yaqiinan markaas wuxuu ku yiri wiilkan nimanka reer yahuud hadday ogaadaan inuu asaga Muhammad ka soo baxay yahay waxay isku dayayaan inay dilaan nimanka dhulka Roomaanka iyo nimanka